ragga u shaqaalaha u ah madaxweynaha 3 casho u sii hadhay xalay 4 bay ahaayeen markay shirka naga xidheeyeen ragga shaqaalaha waxay deegaanadan u dhashay ee annaguna aan deegaan ka soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa aad gasheen qofku markuu jinaabo galo jeedal iyo rajmi waa ku waajibay laakiin insha Allah doorashada ka bacdi waa jeedalkiina iyo rajmigiina waa u dhici doonaa adeer laba iska kaaxiga la islama xanto dhalashiya xigtaba waa ninka dhinaca kaaya abaal buura abaal bara abaal buni iyo dheeraad ninba kiisa kaan ugu gudi beerka ka ogsooni waxa weeye waqti yar waa la kala bixi hadii aanu tolkayo nabad u doonaynay dhulbaantana aanu nolol u doonaynay dhulbaanta hadii diiday nabadii dan waxaan umaleeystaa inuu nolosha iska nahay aniga waa Munir Axmed Cigaal iyo waftigii aan hogaaminayay waxaanu nimid magaalada Qorlugud waxaanu ciidanka soo gaarsiinay wixii aan wadnay ee aanu sidnay ciidamada kala duwan halkan aan ku sugannahay waxa weeyaan taliskii ciidanka teleesma jire aanu jiitirtiisin ma yiraahdaa abtiyaashay baa yiraahdaa aniga Munir Axmed Cigaal baa la yiraahdaa laba qof ma ka koobanahay qof waan ahay SSB sida loo yaqaano laakiin waxa ka sii weynahay qofka kale ee ah inaan ahay abtiyaashay hadda garxas bay noqdeen aanu dibri hore habri isbaan oran jiray laakiin jiiteedisiis eesh qiyaasig raacaynaashahaygi nin weyn oo raacaynaashaa baa waxaan aad ugu faraxsanahay runtii farxad gaar ah ay tahay in abtiyaashay halkan naftoodii iyo maalkoodiiba ay ku yimaadeen iyagoo hiila waa dareen gaar ah waa dareen aad ka dhadhansanaysid dhuux hoose maaha markii koowaad ay hiil u yimaadaan colaaduhu way iska bilaabmaan Afrika muddooyin dheer baa la soo dilayay muddooyin dheer baa dadku ay magaranaysaa xoolo dhaqato ama ha ahaadaan ama dawladii kala dambeeyay ha ahaadaan ilaa qarniyo hiilka ugu horeeya ee yimaada cid difiraysa ma jirto ama marka la yiraahdo isaaq yaa ugu soo horeeya hiilka abtiyaashay buu ahaan jiray 9 way sii qoyin tahay 5 sano ka hor bahayd sideedaad ilka casa halkan taliye ka ah abtigay uu ku jiray markaa sanamta hiilkii ugu weynaa bay halkan ku yimaadeen doolaaliya ka dagaalamay cilmi faqashi ilaahay u naxariiste maantana way yimaadeen waxa halka ku soo afkay dad badan oo wax badan oran jiray hadii siyaasaduhu murgaan hadii hogaamiyuhu dadka kala qaybiyo taa macnaheedu maaha in dhuuxa dadku isbedelo dhuuxa dadku waa kii kaabtiyaashay waa kii waxaan maanta ku faraxsanahay xeradan ugu soo booqanay in iyagoo saanadoodii ciidan iyo hubkoodii wata ay halka joogaan waxaan jecelahay in kelmad uga faa'iideysto halkan ragga u shaqaalaha u ah madaxweynaha 3 casho u sii hadhay xalay 4 bay ahaayeen markay shirka naga xidheeyeen ragga shaqaalaha waxay deegaanadan u dhashay ee annaguna aan deegaan ka soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa aad gasheen qofku markuu jinaabo galo jeedal iyo rajmi waa ku waajibay laakiin insha Allah doorashada ka bacdi waa jeedalkiina iyo rajmigiina waa u dhici doonaa oo ay noqon doontaa aad baan ugu mahadnaqayaa ku hadlaaya afka deegaankan oo dhan anoo ku hadlay abtiyaal aan leeyahay wad mahadsantihiin insha Allah taala dalkeena wanaagsan dawlad wanaagsan oo timaada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo dalka yimaada oo ummadan mideeya oo ciidankan qaranka iyo ciidamada nolol sameeya ayuu sugaynaa muddo dheerna maaha alaysa bisubh qariib 3 casho kaliya inaga hadhay waa idin jecelahay we love you dhamaantayo waxaan leenahay hees maxayd ragadowga u jeexay way ducaysay ya salaam ya salaam ya salaam ما شاء الله تبارك الله aniga oo kamida waftigan aniga iyo Munir iyo Jeeye iyo rag badan Maxamed Wadan iyo halkan soo booqanay magaalada Qorlugud sidoo Munir sheegay wixii aanu awoodeynay ciidamada la garab istaagaynay hadii yihiin SSB iyo hadii yihiin G36 iyo hadii yihiin ciidamada qarankaba waan soo gaarsiinay si gaar ah waxaanu ragayaga abtiyaasha loo yeeyo Munir iyo aniga iyo Jeeye iyo aanu go'aan ku gaarnay inaan xerada abtiyaasha aanu tagno sababtoo ah abtiyaasha waxa la horta ku bishaareysataan horta waxaad ku bishaareysataan kaftankii habar jecel dhexdeeda waa noo wanaajiseen sidee noogu wanaajiseen waxaad noogu wanaajiseen inaanu maanta nimanka habar jecel marka la kaftamayna online war horta wixii la ma haysan oo yaa haysan G36 sankan soo taagayna abtiyaalaad iyo aad mahadsantiin abaalkiina if iyo aakhiraba waa leedin waxaan leeyahay abaal buura abaal bara abaal buni iyo dheeraad ninba kiisa kaan ugu gudi beerka ka ogsooni waxaanu insha Allah bidmilaahi kariim aynu ka baxaynaa culaysyada dalka
saaran 4 cisho kadib 4 maalmood kadib haddii alla yidhaa cabdiraxmaan cirro weynu doorananaa waa madaxweyne dhaartii u harsantay waxaynu rajaynaynaa in dalka iyo dadka weynoo midayo waananu ka filaynaa si gaarana beesha garxajis waa lagu yaqaan inay Soomaaliland midaysay abtiyaal Soomaaliland midaya Soomaaliland muuse u kala kaxeeyay ummadeeni reer Sheekh Saxaaq buu qaybiyay Soomaaliland buu qaybiyay intaba waynu isu keenaynaa dalkeena qurux badan oo midaysan oo kii 2017 lagu wareejiyay ka qurux badan ayaynu kala wareegaynaa idinkana waxaan rajaynayaa idinkii ciidamada qarankaba in ilaahay idinkii wax fiican ay noo soo socdaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan xeriyooyinkii kale oo dhan aan ka dooranay xerada garxajis runtii waa abtiyaashay anigu si gaara inkastoo Muniir iyo ninka kale gulada ay abtuu yihiin wallahi aad baan u faraxsanahay waxa muhiimadu tahay horena halkan waa u timaadeen waana iimaan doontaan insha Allah halkan uga mahadnaqayaa waftiga ballaadhan ee hogaaminayo Muniir Axmed Cigaal ee ka socda xisbiga wadani iyo kaax mar labaadna waxaan u mahad celinayaa deegaankan bulshada degan ee la yiraahdo abar jeclo ama ciidamada SSB oo si aad iyo aad u qiimo badan oo u sharaf badan noogu soo dhaweeyay deegaankan annagoo ah uu deegaankani ka mid yahay deegaamadayada anigu waxaan ka mid ahaa mujaahidiintii ururka SNM ee halgankii ka soo qayb galay iminkana waxaan ka mid ahay saraakiil xigeenada goobta halkan fadhida waxay Soomaalidu tiraa laba bidabeerka iskoog annaga iyo deegaankan loo kala warrami maayo waxaanu ka soo bilaabay xabadda meesha laadaha iyo bari qorulugud baan ku soo geliyay laba habeen iyo laba maalmood buu roobku dhakada nagaga hayay raggii maalintaa ku dhaawacmay way joogaan way ka horreysay 13 inan oo habar yoris ah iyo addimadu ku go'een xaradii halkan qorulugud waxaanu ka dagaal galnay Bohorlayare Aynaba Wadaamago Kireed labada labi Gaatama Diinlayaal Gumburlibaax Baale Eeday Naqdamijo Gubad Xariir intaaba waxaanu isugu hiilinay walaalaha iyo intaan anigu nimeeyay oo habar jeclaa turteeda saaray Ilaahay bay u tirsantay ama nool oo dhaawac hadda waxa goobta ku sugan mujaahidiintii halgankan ugu hogaaminaysay oo ka mid yahay Axmed Xasan Cabdiraxmaan oo taliyaashii hawlgelinta waxa goobta jooga kayseelka badan oo ahaa mujaahidka ugu qiimaha badan deegaankan la yiraahdo qorulugud oo jaacdoolaala kii maalintii uu dhaawacmay madaxa kaga dhacday qaaday adeer laba iska kaaxiga la islama xanto dhalashiya xigtaba waa ninka dhinaca kaaya walaalayaal iyadoo isaaq umid quraba yahay habar jecel iyo garxajis waxa ka dhaxeeya dadka waxa ka dhaxeeya danta waxa ka dhaxeeya dalka halka waxa iga muuqdo mujaahidiintii halgankan ugu soo barbaarisay mujaahid Cagaweyne Axmed Cagaweyne waragii tan ka dagaal galay ah halka waxa ka tagay saraakiil aad u fara badan Faysal Dheere Furcas Ali Badaregto dimiyaal tirin karaya Axmed Xasan Cabdiraxmaan geeljireelka badane Jaashow Hays 32 sarkaal oo saraakiishii halganka hogaamin jirtay ayaa goobtan ka tagay badna joogan kuwii kale ay keeni doonaan gaadiidkii tiknikada aan telegrafka waxa weeye waqti yar waa la kala bixi haddii aanu tolkayo nabad u doonaynay dhulbaantana aanu nolol u doonaynay dhulbaanta haddii diiday nabadii waxaan umaleystaa inuu nolosha iska nahay waa ku mahadsantii walaal booqashadaana soo booqateen oo timaadeen aad baan idin soo dhaweynayaa inta haddaan ka gudbo hadalday isaga iska badan ee garxajis iyo habar jeclo cid isu dhaantaa ma jirto weligood bay soo hiilin jireen isagoo aan isaaqaba wax kala ahayn anigu ma kala qaadqaadiyo isaaq laakiin labada ugu horeeya ee tartama ee isuna hiiliya waxna isdara waa iyaga wixii siyaasad iyo nin dallihi uu yara meelaha yara camaalqooyada waxba dhigeysan mayno maada gabayga waatan ka tegey maridhigeedii ama macnaynin maasooyinkii muunada lahaa iyo marjaf waliba goortuu tirshay waan iska maanacayaa mulkigeeda anigoo yar buu mawla ii furaye balaalmariya maanta oo kale madal ka sheegay meel ay tahayba Somaliland waa markaa quree marsadii burco iyo mureec meedhashiya daalo marsadii berbera iyo togdheer madasho ood weyne mugojaale booramiya dila waa markaa quree insha Allah maalmaha ka hadhay waad mulkiyaysaa iyo ciroomaanka geli ku sugo waad mulkiyaysaa mahad waxaan u qiray mawlaha rabbi oo kaanka maamulo ee midna waxaan u qiray mudanaha xirsi la isma maanacay midna Maxamed Xashaan u diray magan Ilaahay midna Muuse Habari dagaan shaashada u mari waabtiyaashay midna Muuse Habari daga ayaan shaashada u marinay muuniyo tolimo
habar jeclaa lagu majiirtaaye murtidana salaam baa ahaa mahad ilaahaye in maroodi lagu maakumay maan maragu haystaaye waa maxamed yowlaba arbaha kuma masaaleele murjiskii badda lagu matelay miilanka horow waa markuu israel carabi lahaa halka haddaan yara dahabto uu gujiskii badda ku tilmaamayay